xildhibaan mubaarak yuusuf cilmi bidha oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Burco isla markaana ka tirsan gudida bilicda ee magaalada Burco ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in xisbiga mucaaradka ah ee wadani uu birihii soo lartay dawladda hoose ee degmada Burco hirgelisay uu ku xidhay calanka xisbiga wadani. xildhibaan mubaarak yuusuf cilmi bidha warbaahinta kula hadlay magaalada Burco waxa uu gudida anshaxa komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ugu baaqay inay tallaabo degdeg ah ka qaadaan xisbiga wadani oo uu ku eedeeyay inay astaamihii xisbinimo ku dhadhajiyeen biraha laydhka ee magaalada Burco isagoo maayir ku-xigeenka degmada Burcana ku canaantay inuu tahli kari waayay wax ka qabashada dhacdadan subcad dilka ku ah magaalada Burco. waa sida uu hadalka u dhigay. magaalada intii aan ka maqnayn waxa runtii ka dhacday arrin aad u farxun oo aan qaadan weynay oo anigu aan maqlay laakiin maanta aan ku soo arkay sida arki doontaan indhahayga aan ku soo arkay. waxay ahayd inuu runtii mas'uulka magaalada maayir ku-xigeenka magaalada markaa kusoo maayirka ah iyo golaha iyaguba inay ka jawaab ka bixiyaan laakiin may dhicintaas. waxaad la socoteen magaalada Burco inaanu 2 sano ka hor aan ku wareejinay solar light ayaan ku wareejinay magaalada oo ku kacday $200,000 laamiga ku soo wareegay magaalada Maynka ee ku soo wareegan ku wareejinay solar light wada aragteen ama intiina kala arki doontaan. runtii waxay wax bilicda magaalada qayb ka qaatay security-ga qayb ka qaatay. waxaa nasiib darro ayaan darro oo wax laga xumaada in xisbiga wadani bilihii leerkee solar tahay ee ummaddu ay wada lahayd ee shacabka reer ay wada lahaayeen ee ahayd wax danguud oo dadku wada leeyihiin oo bilihii leerkee solar tahay in xisbiga wadani uu ku xidhay calankiisii ku xidhay uu ka taago imka aan soo arkay. runtii aad iyo aad baan u cambaaraynayaa falkaa foosha xun ay ku kaceen xisbiga wadani. waxaa ka sii darantaa inaanay in markii mas-uuliyiinta ee 3 xisbi uu barasaab gobolka Togdheer uu isugu yeeray ee uu xisbiga wadani ku yiri ka fura inaanay u dhaga taagin. waxaa runtii aan arkaa inay taariikh fool xun waxaan u sheegayaa xisbiga wadani oo la yimi fadqala iyo waxaan runtii ahayn doorasho gobolkan Togdheer la yimi waqtiga yimaadeen ilaa imika ay taagan tahay inay ku soo noqdaan dariiqii jacay komishanka qaranku inay ku soo noqdaan oo ay fowdada ka daayaan gobolka. waxaan u soo jeedinaa gudida komishanka qaybta anshax waliba gudida anshax inay tallaabo ka qaadaan xisbiga wadani oo isagu birihii ka dhaxeeyay dadka annaga oo lahayd dawladda hoose ay waliba lahayd inay calankii wadani ku xidhaan aad arki doontaan. waxaa runtii wax laga naxaa oo laga sii xumaada in barasaabka hadalkiisii barasaab gobolka Togdheer waa u dhex 3 xisbi dawladdiibu matalayaa de haddaan hadalkii barasaabka in aan halkiisa laga qaadin oo amirsiya la furin oo imikana aan soo aragnay oo warbaahinta ila socotaa imika ay soo duubeen iyagoo birihii ay calamadii wadani ku xidhayeen. taasina runtii waa arrin fool xun waa arrin aan aqbali karin waa arrin aan cambaarayno. runtii waxaan u aragnaa in de meelihii taageerayaashii wadani meelihii birihii u dhawaa inay kuma wada xidhan gobolkii oo kuma xidhan karaan laakiin waxay ku xidheen taageerayaasha wadani halkii ay degan yihiin intii u dhaweyd. laakiin macluum maaha biruhu waxay ku yaalaan halkii taageerayaasha wadani joogeen gobolka oo dhan baa naloo doortay. annaga xukunno gobolka oo naloo doortay golihii naloo doortay baan ka mid ahay xubin ka mida baan ahay. ma aqbalayno mana ogolanayno umana dulqaadayno arrintaasoo kale waa in laga furaa sida ugu dhaqsaa badan wayna ogeyn waliba halkii ay cabdiraxmaan cereye ka qudbadayeen ee calanka wadani ka taageen waa halkii 4 sawir ee madaxweyne cabdiraxmaan tur ilaahu naxariista lagu dhajiyey goobtii runtii aynu ogeyn markii horena aynu ogeyn inay 4 madaxweyne lagu dhajiyo hal madaxweyne lagu dhajiyey ayuu cabdiraxmaan isagoo calankii wadani looga taagay ayuu ka qudbaday. arrintaasi arrin aan u dulqaadayno maaha. Axmed Kaafi Saleebaan Carab Bulsha TV Burco.